halkaa waxaa diyaarado dagaal oo tayadoodu hagaagsan tahay waxaana jira diyaarado aanu dhigoodu jirin oo farsameyntooduna ay ku baxdo dakhli aad u ballaadhani barnaamijkeennana waxaynu ku soo qaadanaynaa qaar ka mida diyaaradaha dagaalka ee muhiimadda weyn leh diyaaradda MiG-31 waa diyaaradda guuxeeda ka dheeraysa waana diyaaradda ay samaysteen Ruushku waana diyaaradda loogu talagalay inay ka hortagto xuduudda gaashaanbuurta NATO waxaana ay markeedii ugu horeysay duulimaad u gashay hawada sanadkii 1975 afar sanadood ka bacdina waxay bilowday adeegeeda military waana diyaaradda ay suuragalka u tahay inay hal mar wada kaantaroosho ilaa 10 jiho oo kala duwan waxaana ay isku hal mar wada duqeyn kartaa afar bartilmaameed oo kala duwan ugu yaraan 300 oo diyaaradaha ka mid ah ayaa haatan ay adeegsadaan ciidamada Ruushku waana mid ka mid ah diyaaradaha ay ku tirsan tahay xuduudda military ee Ruushka waxaana ay ku rakibaan raadaar casri ah iyo agabka kombiyuutarada waxaana suuragal ah inay xambaarto gantaalaha cirka laga rido ee cirka wax ka dila nooceedu yahay R77 iyo waliba gantaalaha kale ee shucaaca ka hortaga waana diyaarad ahmiyad weyn u leh shaqada difaaca cirka diyaaradda labaad ee F-16 Fighting Falcon waa diyaaradda dagaal ee mashiinka kaliya ku duuli karta waana qayb horumarsan oo ka tirsan diyaaradaha F-15 waana diyaaradda qaabtaysan ku baabi'in karta bartilmaameedyo dhinacyada cirka iyo dhulka waxaana sanadihii u dambeeyay loo isticmaalay isku hormaada meelo dunida ah ka socday waxaana la sameeyay ilaa 4500 oo diyaaradaha noocaas waana diyaaradda ay adeegsadaan ilaa 26 dawladood oo dunida ka mid ah sida Turkiga, Singapore, Kuuriyada Koonfureed, Greece iyo dalal kale waana diyaaradda F-16 oo dhererkeedu gaarayo 15 mitir ballaceeduna 10 mitir horumarin kooban oo lagu sii sameeyana waxa ay ka dhigaysaa diyaarad karti dheeraad leh tayada mashiinkeeduna waxa uu suuragal uga dhigayaa inay saacadiiba goyn karto masaafo 1500 oo mayl waana diyaaradda qaadi karta sanadda nukliyeerka iyo hubka kale ee caadiga ah diyaaradda kale ee F-15 Eagle waa diyaaradda ay samaysan karaan kaliya dawladda Mareykanku waana diyaaradda shaqada ku jirtay muddadii 30 sanadood ahayd ee u dambeysay waana diyaaradda aan laga adkaan karin hawada dhexdeeda waxaana ay u nashqadaysan tahay qaabka ay ciidamada Mareykanku gacan sareynta ugu lahaan lahaayeen goobaha colaadaha waana diyaaradda ay Mareykanku ka iibiyeen oo kaliya wadamada ay saaxiibka dhow yihiin maadaama ay tahay diyaarad tayadeedu sareyso wadamada laga iibiyana waxa ka mid ah Sacuudiga iyo Israa'iil waana diyaaradda dagaalada mustaqbalka ee kartida u leh inay gaadho masaafooyin dhaadheer dabeetana duqeyn ka geysato goobaha cadowga waxa kaloo ku rakiban qoryaha madaafiicda ee dhuntoodu tahay 20 mm waxaana uu weheliyaa agabka dagaalada elektaroonikada diyaaradda kale ee Sukhoi Su-35 waa diyaaradda dagaal ee ay Ruushku samaysteen waxaana ay markeedii ugu horeysay duulimaad samaysay sanadkii 1988 waxaana loo adeegsadaa shaqooyin kala duwan iyadoo ah diyaarad heerka dawladuskeedu sareeyo waxayna ka tirsan tahay jiilka afraad ee hubka ciidamada waana diyaarad leh gacan sareynta dhanka hawada sare waxaana u suuragal ah inay duqeyso bartilmaameedyo dhanka dhulka ah waxaana qaadan kartaa shidaal gaaraya 12,000 oo kilogram taasoo u suuragelinaysa inay duulimaad toos ah ku jiri karto masaafo dhan 2600 oo mayl iyadoo aan mar qura istaagin waxayna xambaari kartaa gantaalaha cirka laga rido ee cirka wax ka dila iyo kuwa kale ee lagu baabi'in karo goobo dhulka iyadoo qaadan karta ilaa 14 gantaal diyaaradda kale ee dagaalka waa tan nooceedu yahay Eurofighter Typhoon waana mid ka mid ah diyaaradaha ugu wanaagsan ee dhanka difaaca cirka taasoo ay nashqadeeyeen gaashaanbuurta NATO waxaana ku rakiban laba mashiin oo isbedelay waxaana hindisaheeda wada lahaa afar dal oo reer Yurub oo kala ah Ingiriiska, Talyaaniga, Spain iyo Jarmalka dalalka laga iibiyana waxa ka mid ah boqortooyada Sacuudiga waxaana loo badinayaa inay Faransiisku laftooda ka qayb qaateen farsamada diyaaraddaasi waana mid ka mid ah diyaaradaha ugu fiican ee haatan adeegga ku jira waxaana u suuragal ah inay ishaada ka dhuubanto saacadiiba waxay goyn kartaa masaafo ka badan 1300 oo mayl iyadoo u isticmaasho hubka laserka si ay u xadido hadafka ay duqeynayso waana diyaaradda dagaal ee socdaalka xiriirka ku jiri karta muddada 3000 ee saacadood diyaaradda ay samaysteen militariga Sweden ee Gas Gripen ayaa ah diyaarad fudud oo ay sidoo kale haystaan wadamada qaarkood sida Koonfur Afrika, Czech, Finland iyo Holland waana diyaaradda qaadata hub culayskiisu ka badan yahay 7,000 oo kilogram waxaana u suuragal ah inay duruuf kasta oo dhanka cimilada ah ay gudato hawlgalkeeda military
diyaaradda kale ee Boeing Superhound waa diyaaradda ay adeegsadaan ciidamada Australia waxayna kaloo dul saaran tahay maraakiibta dagaalka ee Mareykanka qaarkood waana diyaarad la sameeyay 20 sanadood ee u dambeeyay oo xambaari karta cadad badan oo hubka kamid waxaana farsameeyo oo soo saara dalka Mareykanka gudahana waxa ay ku sidataa madfac dhuuntiisu tahay 20 mm iyo gantaale kala duwan diyaaradda ay ku qalabeysan yihiin ciidamada Shiinuhu ee nooceedu yahay Geo 20 ayaa ah diyaarad casri ah oo la soo saaray 2005 waxaana la shaqeeyay qaab waafaqsan xafidaadda sirta ciidamada ee Shiinaha lamana yaqaano mashiinka saaran noociisa mana jirto xog faahfaahsan oo laga hayo waxaana si adag looga qariyay xogteeda wadamada reer galbeedka diyaaradda ay Faransiisku isku haleeyaan ee Dassault Raba waa diyaaradda xajmigeedu yar yahay laakiin khasaaraha badan geysan karta kartideedana waxa la ogaaday dhamaadkii 80meeyadii ee qarnigeena dhaaftay waxaana ku rakban hanaanka kontaroolka iyo la socodka iyo raadaarka u suura gelinaya inay ka shafto bartilmaameedyo dhanka dhulka iyo cirka iyadoo sidoo kale qaadi karta muuqaalo sawirra oo ay tayadoodu sareyso waxaana lagu arkay dagaalo ay ka gashay meelo ay ka mid yihiin Liibiya, Mali, Ciraaq, Suuriya iyo Afghanistan waxaa kaloo diyaaradahan aynu ka hadlayna ka mid ah diyaaradda nooceedu yahay Lockheed Martin F-35 waxaana adeegsadaa ciidamada Marines-ka ee dalka Mareykanka waxaana u qorshaysan in dhawaan laga iibiyo dalal badan oo caalamka ka mid ah waxaana ay ka dhuwan kartaa raadarada cadowga iyadoo duulimaad hoosena ku socon karta diyaaradda kale ay Ruushku isku ilaaliyaan ee Sukhoi 57 waa diyaaradda qiyaasaha dhaafsiisan waana diyaaradda horkacaysa jiilka shanaad ee hubka ciidamada iyadoo qaadi karta miisaan gaadhaya ilaa 10 tan saacadiiba waxay goyn kartaa 1600 waana diyaaradda ay ugu talagaleen Ruushku inay u qalanto hubka ay dalalka galbeedku haysta inkastoo aanay ilaa hadda si rasmi ah dagaalada uga qayb qaadan